وفد بلارون وهجامينيو قدوميها قلها وكيلة الصوماليلان عبدالرحمن محمد عبد الله عرو أنا قدوميها والسياسات كوضني أيامات سوين لقصود ومقالة اللاسعنود يدو تاجرياشا والسياسات كوضني يدو دوينا ضد رمضان يكجور تجين ملك بحسن مقالة اللاسعنود وحنا قاعدين ترى بدن لوجو سوق البيدين على هوتيل حمدي halkaasoo munaasabad ballaaran lagu qabtay halkaasoo ay ka soo qayb galeen taageerayaasha ururka siyaasadeedka wadani wax garad iyo waliba dadweynaha tiro badan munaasabadaas ee goorintii waxa ka hadlay mas'uuliyiinta ururka siyaasadeedka gobolka Sool iyagoo tilmaamay inay si weyn u soo dhaweynayaan madaxda ugu sareysa ururka siyaasadeedka wadani ee markaasi soo gaadhay magaalada sidoo kale waxa ay halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta golaha dhexe ee ururka siyaasadeedka wadani iyo waliba gudoomiye ku-xigeenada ururka siyaasadeedka wadani oo ku weeliyay safarka gudoomiyaha ururka siyaasadeedka wadani iyagoo dhammaanba uga mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyay isla markaana ku dhiirigeliyay inay la garab istaagaan sidii markaasi u soo bixi lahaayeen ururka siyaasadeedka wadani ugu dambeyntiina gudoomiyaha ururka siyaasadeedka wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland عبدالرحمن محمد عبد الله عرو oo halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa sheegay in uga mahad celinayo taageerayaasha sida weyn ay soo dhaweeyeen waxaan rajaynaynaa inaad ururka wadani markasta ugu soo baxdeen oo ugu codeysaan inuu noqon doono cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ilaahayda kii iskugu iman doono halkaa isagoo ah madaxweyne oo laasacanoodna abaalka ay ku leedahay soo celiya aad ka qurqursantihiin oo aad ka biyadiideen maanta waxaanu idiin wadnaa kii Soomaaliland midnimada ka abuuri lahaa mustaqbalka insha Allah taala waqtiga soo socda ayaanu idin ka codsanaynaa inaad noola meel marisaan وأنا كنت أسمعها إن مية كيلو إسبوعية لاسعانود ديسمبر كهر ما بيش الإنسان كهر وكل شيء هذا يجي إلى الشاسع شرحنا هذا ما جامع إسقفصن والمرة ما سمعي كرم دليل من أحسن ما سمعي كرم تاريخ اللي يقول لك سيء هاي هم دور في الصوماليلاند وقت هو وقت جنبه هذا الأول عرس وأنا صوبها مجال اللاسعانود أبغى بليس كأنشي وحنا بحصوص تكون سفارة isku soo wadaduba markii ugu horeysay oo gudoomiyaha ururka siyaasadeedka wadani yaana gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo soo gaadhay magaalada Laascaanood taasoo ku soo gabagabeeyay tartankii golaha deegaanka ururka siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Ali Ducaale Home Cable TV Laascaanood